بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta casharkeenu wuxuu ku saabsan yahay challenge-gan oo ah qaabka loo sameeyo 10 folder aan mid kaliya magac lahayn. Waad arkaysaa how to create 10 folders that have no name or that. Marka waxa weeyaan qaabka aad u samayn kartaan 10 folder ama file ama gal ama bushqad oo midna magac lahayn. iska dhaafi xataa ay qaarkood hide garaysan yihiin. Marka labadan folder magacaantu ma arkaysan bas laakiin waa folder arkaysan ka waxba kuma dhex jiraan kana waxba ku sii dhex jira arkaysan. Okay, xataa videogan aad arkaysan isaga laftigiisu waa video waxaan ka dhigay isagana maxay tahay ilaa magac waan ka dhigay. Marka haddaba qaabka loo sameeyo ayaan idin sheegi doonaa. waa only 2 steps ama laba talaabo kaliya taayaan qaadaysaa. talaabada koowaad waxa weeyaan inaad magac ka bedesho. tusaale ahaan folder baad samaynaysaa kadibna folder magac ka bedelaysaa. talaabada labaadna waa inaad hide garayso maad qariso. Okay, haddaba aan bilowno. haddii aad isticmaalayso desktop ama laptop kaasoo ay keyboardkiisu gaar ka yihiin, tusaale ahaan oo kale keyboardkiisu ay gaar yihiin, number keyboardka ay gaar yihiin, isaga waxaad isla qaban doontaan new folder baad oranaysaa. kadibna waxaad samaynaysaa folderkii, kadibna space baad taabanaysaan, alta waxaad isla qaban doontaan alta plus 0160 kadibna wuu isbedelayaa ama bilaa magac ayuu noqonayaa. laakiin haddaan keyboardka ka duwanay keyboardkayu kama duwana ama waa laptop kaasoo isku dhex jiraan numeraanta iyo xarfaha kale isku dhex jiraan. markaa qaabkeed samaynaysaa waxaad ku qoraysaa xaggan waad soo furaysaa application la yidhaahdo car map. marka ugu horeysa car ku qortaa caadi kusoo baxaya, kadibna waad furaysaa open baad oranaysaa. meesha ugu horeysa waxaad ku arkaysaan space ka yar. okay, aan hoos yartaa degno waxaa ku jira spaceyo fara badan oo aad magac ahaan isticmaali karto ama xarfiyeed ka fara badan oo af carabi leh oo ingiriisi leh oo luqado fara badan isugu jira. marka tusaale ahaan oo kale kan ayaan isticmaalaynaa. meeshaan marna ayaan isticmaalnaa koob waxaad oranaysaa drag baad soo jiidanaysaa, waad ku sii daynaysaa, kadibna copy baad oranaysaa, kadibna new waxaad oranaysaa rename best. okay, waan samaynay markaa folder ilaa magaca. okay, way jiraan kan waa isticmaali kartaa, kan waa isticmaali kartaa, kan waa isticmaali kartaa, waxaan oo dhan waa isticmaali kartaa waana bilaa magac. haddii mid kaliya tahaan lahayd hal folder umay ku samaysmi lahaa, laakiin waxaasoo dhan ayaad haysataa oo aad isticmaali karto. waxaad isticmaali kartaa xarfahan cid ka fara badan, calaamadahan adigoo dadka ku qiyaanaya, tusaale ahaan saaxiibada ku waalaya amaba magaranaysaa ay challenge uga dhigaya. taas waa qaybta koowaad. waad samayn kartaa folder fara badan oo magacaantan leh. okay, talabaad aynu gudubno oo ah qaabkaad u hide garayn lahayd. waxaad tegaysaa propertieska, xaggan soo eeg propertieska, kadibna customize, kadibna change icon baad oranaysaa. waxaad kasii xaggan aad u kacaysaa markaa. okay, soomaalkiisin xaggan saddex mid baad mid dooran kartaa, saddexda xabo ay mid dooran kartaa. markaa kaa dhexaan doorta hadda apply baan yidhi oo qisqariyey. markaas qaabkaas aad oranaysaa arkaysaa folderkii wuxuu noqday folder bilaa magaca haddana aan jirin. okay, waxaa kaloo idin sheegayaa qaabka aad folderka u sameynaysaan oo ah control shift plus n shortkada qaab fudud aad u samayn kartiin. markaas maanta cashirkiina halkaas ku dhan yahay. challenge-kaygan haddii aad hore taqaanay waa caadi, haddii aanad aqooninna commentiga soo qorin ad ka faa'iideeyeen kale. waxaa sidoo kale dhiirigeliya waadna dhiirigelin doontaan insha allah inaynu soo sameyno challenge-yo fara badan oo computerka ku saabsan amaba maxay tahay casharaan fara badan oo educational purpose ah. marka casharkaas wuu noogu dhan yahay. assalaamu calaykum waraxmatullahi